السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدرسة سومالية ومدى إسلامك وإذن سلامية ميلك استاجوك تنبع. waxaan maanta doonayaa inaan wax yar ka idhaa dad aad iyo aad si khaldan ugu hadalhaya xidigaha geeska oo xidigaha geeska xamar baa laga soo diray in waxbaa la soo siiyey wax noocaasa ku hadlaya ma adeerayaan xidigaha geesku waa astaan qaran weeye calankan ayay meel la taagan yihiin waa astaan qaran qof kasta oo Soomaaliya marka uu maqlo xidigaha geeska maxaa ku soo dhacaya waxaa ku soo dhacaysa Soomaaliland waa dad dalkooda u soo halgamay oo u soo hadlay oo haddii magac mujaahid heesa lagu qaadanayo waa kuwii ku qaadan lahaa marka dadka sida khaldan uga hadlaya waxaan leeyahay ilmaadeerayaal waxay isu dhimina idinku waxay isu dhimeen xidigaha geeska waxba u dhimi kari maysaane wadankan waxaynu haysanaa 3 xisbi 3dan xisbi qof kasta wuxuu xaq u leeyahay cidda uu doono inuu taageero haddii kulmiye lagu ururayo waxay ahayd in markii horeba xisbi kaliya la samaysto may ahayn in 3 xisbi la samaysto sababtu tahay dee 3da xisbi dadkan u baa taageerayaal u noqonaya cid kale taageerayaal meel kale taageerayaal uga iman maayaan marka waxa qofka bini aadamki waxa loo baahan yahay inuu isxakameeyo xitaa haddaad aragto inay arrintu kugu foorarto waa inaad adkaysiyaheeda lahaataa ma aha inaad aflagaado iyo cid baa lacag la siiyey iyo halkan qofkii aan kulmiye sacabka u turinba meel kale la socdo waa huwan waa cadow yaa cadow ahayn markaa ummaddu waa wada cadowtay markaa waxaan leeyahay xidigaha geesku waa astaan qaran hadda waxaan maqlay dad leh hees kale soo wadaanay ciidanka oo ciidanku ku raaligelin xaq maba ahaba inay ciidanka tii hore hiil ugu filaydba tii hore ciidanka u hiilinaysay sababtu ayaga la isweydiinayay waxa ku dhacay iyo wixii dhacay iyo sababtu wixii dhacay u dhaceen ayagay dhibtu ku dhacday ciidamada qaranka ayagaana loo hadlayay marka xaq bay maxaan ku dhaday taasabay ahayd in lagu amaano laakiin dadkeena waxa ka dhaadhacsan in maxaan ku dhahay cidii marka xukuumadda haysata in loo wada sacabtumo daa suurtagal maaha loo wada sacabtumi maayo hadday in iska sacabtunto oo ama wax yaro la siiyay ku sacabtunto ama maxaan ku dhahday oo ay arki weydo sawirka weyn iyo ummadda iyo dalka siduu yahay ay arki weydo oo inta asaga faraqa loogu shubay ama reernimo waxun ku difaacdaa way jirayaan mar walba xusbi walbana way ku jirayaan laakiin majority-ga ummaddu dee waa dad xisaabtamaya oo caqli iyo maskax leh oo wax isweydiinaya oo 7 sano in 10 talaabo Soomaaliland ay dub u qaaday waa dad ay u muuqato dadkiina halkan aan maaragtay wax igu soo qorqora horta waa inaad aqbashaan sidaan horeba idinku sheegay inaad aqbasho inaan cid waliba kulmiye taageeri karin ummaddu xaq bay u leedahay xidigaha geesku xaq bay u leeyihiin inay cid ay doontaan taageeraan anigu xaq baan u leeyahay inaan cidan doono taageero anigu waxaan ahay qof kaligeed ifkan timi aakhirana kaligay baan tagaya qof dhinaca lay gelin qof lay raacinaya midna ma jiro hadba sida ay wax igu muuqdaan ayaan u sheegay anigoon cidnaba abaal ka rabin أنا عدنا وحبة كجربين أو عدنا رالي كلينين وح أنا قرن كي دنتيس أيلا موقت أيام كهذلي حق بانو لا مواد بانو إنه وحس ويديو إن كان ضب وفرستينا وحي وحسم حيقول لعين حق بانو لا قفوين بارانو أحي ذات بدن بهالكهف لقاد يجوا سوق القرية أفلقات هذا معني استود صار راعي سبب الشيء إن هذا التاجين وداني وعدوي وإن هذا كل مية كعدوسن بقول كي والله بعتنجر كل مية دلكي بابيي أو شعب كي يضط كي وضع الشيء اسكو دراي أو اسكبدا عيد كلا إساق اسكو هين كرواي وحاطي هذا وداني إن محنكو هذا حمر بولا السعودة مركا رونتا كهادلو حمر كل مية وقبضنا محن كده هذا ودني maalintii la doortay
xasan sheekh adeer hargeysa waxaa looga dabaaldegay sidii madaxweyne somalilan la doortay baraha bulshada inamadii iyo dhallinyaradii reer wadani kulmiye eenu ku wada jirnay habeenkii waxaan idhi maxaa dhacay way la soo hadleen adeer inagu ina taageersay inagu wuu ina caawinaya wuu ina karaynaya waxa weeye kulmiya wuxuu ku tiirsanaa xasan sheekh iyo reer hawiye la yidhaahdo wadanina waxaa ku tuhuntaa daarood waa laba reer oo soomaaliyeed oo labada aniga shaqsiyan midna waxba iga gelin labadaba waxaan u arkaa inaan ka go-ay laakiin xaqiiqdan kuu dhiijinayaaye hadduu wadani daarood la socday kulmiyana maantana wuxuu la socdaa hawiye shalayna hawiyu la socday xasan sheekh iyo muuse biixi waa isku xidhnaayeen marka dee dadka ka dhaadhicin kari maysid adnaha kuwaha soo hadal qaadin annaha kuwan dabada ku wato haddadan baa muqdisho lagaga jiraa oloole calankan loo qaybinayo sida warku igu soo gaadhayo haddadan ayaa waxa lagu jiraa in dadka reer muqdisho calankan loo qaybiyo dad laga soo ururiyo la yidhaahdo waxaad tidhaahdaan waddanaanu taageersan laakiin waxaan u arkaa inay foolxumo tahay khalad inay tahay in la ololeeyo waa saxe kulmiya waxaa laga rabaa inuu ummadda reer somalilan wax u sheego wixii uu qabtay uu sheego haddii aanu wuxuu sheegi karayaa jirin de waa inuu maxaan ku dhahday iska aamuso inaanay weliba colaadii iyo foolxumadii wax ka sii badan in la huriyaa ma qurux badna oo ummadda kii hadlaba la xidho oo kii hadlaba la yidhahdaa wuxuu koonfur buu la socda anigu maalintaan ogaaday maalintii xasan sheekh la dooranayay ayaan ogaaday inuu kulmiye xamarku kaga horeeyo wadani wallaahi bilaahi tullaahi maalintaasaan ogaaday ee hargeysa laga dabaaldegay ee barihii bulshada laga dabaaldegay ee meel walba laga dabaaldegay maalintaasaan ogaaday inuu kulmiye kaga xoogan yahay xamar wadani marka reer kulmiye waxaan leeyahay ku ololeeya oo ololeeya laakiin wax ummadda reer somalilan dhexdeeda ka gadmaya ku ololeeya hebel baa hebel la socda u socon mayso in badan baa sheekadaa soo wadeen waxaa soo wadeen wax badan baa soo wadeen kulmiya wadani baa la socda anigu wadani iyo kulmiye labadaba waa ku tuhsanaysa inay xidhiidh la lahaayeen dad laakiin runta markaan ka hadlo dowladda somalilan baa kaga xooganayd xamar wadani maalintii xasan la doortay waxaa soo qoray kulmiye iyo wadani yaa ku badiyey xamar waxaa laga soo wada qoray annaga idinka badinay wadanaad la socotaa laakiin annaga idinka badinay xasan baa badiyey marka labada qolaba waxaan leeyahay doorashadeena iyo ololaheenu somalilan dhexdeeda ha ku ekaado waxa la isku eedeeya waa soo dhammaatay ma jirto kulmiye mar kastaba isagaa kaga horreeyay wadani muqdisho ma fahanteen imikana ololeeya laakiin si nasabadi ku jirto oo akhlaaqi ku jirto oo iimaan ku jiro u ololeeya dadkana qofkii aad ka leexdaa maxaan ku dhahay kulmiye dembi muu gelin xusbi kaloo reer somalilana ayuu taageeradana waxaa keentay wixii 7 sano dhacay halka maalintii la joogay kulmiye talada lagu wareejiyey iyo maanta halka la joogo ayaa keentay markaa taasi waa taa dadkiina halkan aniga aflagaadada iyo cadow baad noqotay iyo wadani waa cadow wadani maaha cadow wadani waa 50% wax ka badan ummadda reer somalilan kun iyo kow jeerna waa idiin sheegay haddaa ummadda intaa leeg tidhaahdaan xamar bay la socdaan waxba meesha kuma haysaan weeye dal somalilan markaa ma jiro weeye xaafado gaar iyo 4 qof iyo 5 qof iyo in yaroo sacab maxaan ku dhahay kulmiye u sacabtuntaa ma keenayso maxaan ku dhahday ma keenayso somalilan waxay rabtaa qof ummadda reer somalilan oo dhan isku wadi kara bari ilaa galbeed qof marka uu dhaawac waddanka soo gaadho aan madaxa ciidda gelin siday madaxda reer kulmiye sameeyeen ee madaxweynaha qaranka
iyo maxaanku idhaahdaye ragga kale ee talada waddanka la hogaaminaya maalintii dhabarjabku inugu dhacay ciiday madaxa geliyeen oo nuurkoodaba waa la waayey waa la isweydiiyey noocaasi madax ma noqdaan ma noqon karaan markay dhibaato kugu dhacdo waxaa la rabaa inaad waddankaaga dardar geliso inaad dadkaaga isu keento inaad ummadda kiciso inaad sida lagula dagaalamay wax isaga celiso laakiin ciidan madaxa gelinayaa kabacdigana dhaantaan ka dultubanaya carruurtii xidhxidhnayd iyo madaxdii iyo maalin walba caloolxumadooda naloo soo dhigdhigayo wax shaqaynaya maaha kulmiya sagxaduu ku tumayaa taageerayaashana inta taageeraysa wallaahi waa inaan somalilan muraad ka lahay dadka haysta ummadda reer somalilan ee xusbiyada kale maxaanku idhahdaa ku jira waxa la idinka rabaa inaad dood keentaan waxay ummaddu idinku taageeraan inaad keentaan anuu ma arko wax la idinku taageero waxaan arkaa dal cadowgiisii loo dabciyey baan arkaa maxaanku idhahday ciidamadii qarankoo 8 bilood halkaa lagu hayay talaxumo oo la garaacayay oo la jilciyey oo maalin walba la garaacayay oo dhannaba loo dhaqaajin waayey dagaalkana laga saari waayey lana gelin waayey ayaan arkaa waxaan arkaa dhaawacaygii oo 7 cisho suuqa maxaanku idhaha xidhka daadsanaa oo lagu laaban kari waayey abidkay waxaasoo kale ma arag واي maxay ku dhacday waxay ku dhacday talaxumo waxay ku dhacday jileeca madaxweynaha waxay ku dhacay karti darrada madaxweynaha reer wad kulmiyo runtaynu isu sheegaynaa doorasha socota ummadda reer Soomaaliland xaq waxay u leedahay qof ku habboon inay dalkan u doorato ama kuba sii simi kara kuwa ku habboon maxaad markaad soo celinaysa Muuse Biixi aad leedahay aan soo celino maxaa lagu soo celinayaa ma inay inta kalena faraha ka baxlaabaa lagu soo celinayaa ma inaanu dagaal aan inaga saari karayn ina geliyaabaa lagu soo celinayaa ma inuu dhaawaceen 7 cisho xirka daadsanaadaba lagu soo celiyo ummadaha kale ururiyaan aynu ku noqon kari weyni adeer egg dadka qaar waxay leeyihiin macani daha sheegin ha ku dad baa waxay ii soo qoreen miyaad ku diganaysaa maya kuma diganayo waan u damqanayaa laakiin wixii waxaa maamulay ayaan diidanay aan rabaa inaanay talada waddanka ku soo noqon reer kulmiyow waxaad tidhaahdaan muuse waa nin adag wuu cararay wuu orday libaax buu fulay anigu waxa umaan diran anigu waxaan u dirtay qaran inuu cararo iyo inuu gaabiyo macna ii samayn mayso ka muwaadin ahaan qarankii ciddii hogaamin laydii xuduudaydii inay sugnaato dagaal haddii aan galo waaba dhici kartaa in la jabiyo laakiin inaan dhaawacayga shisheeyuhu ururin ama aan la dhaawac dilin ama aan la jiidjiidin ayaan adee rabaa caqli iyo cudud inaan midu lagaga baxo ayaan rabaa waa idin salaamaya midna waa idin sheegaya hadduu hadalkayga aanad jeclaysanayn halkan cid kaa rabtaa ma jirto waad ka bixi kartaa anu ma ihi dadka share iyo like-ta iyo waxa macni lagu maalo ma ihi lagu haysto ma ihi la haystayaasha kuma jiro arsaaqadayda waan u kalaha halka dibadda ii taala insha Allah marka waxaas haddaan seexanaya birina waa shaqo tagaya marka shilimo iyo ifka intaan joogay baraha bulshada shilin kama samayn karoon $1 abidkay kama samayn waxaan ogahay haddii aan is iraahdo taa ku tala galo oo inaan ka sameeyo inaan gunnimo qaadanayo inaan macni aan dadka tixgelin doono sida dadka qaar yeelayaan hadda laakiin taasi anigu ma yeelo arsaaqad halkan kama rabo qarankayga calankayga iyo ciidaydan u hadlaa kana dhiigii raggayga ayaa ka dhex muuqda abidkii dhulka uma ogoli ciddii maxaan ku idhaahdaa dhulka u ridaysana in laga bedelaa baan rabaa cidda dhulka dhigtay in laga bedelaa baan rabaa waa idin salaamaya